afduubkii saddexda hablood oo ayagoo yaryar la qafaashay fashilkii sirdoonka Mareykanka FBI-da iyo CIA-da 10 sano kadib markii la helay maxaa dhacay yaa afduubtay muxuu soo afduubtay waa sheekadii argagaxaya ama kaaga kurida Mareykanka iyo caalamka waa sheekadii qof loo maqla madaxa u qabsada ku soo dhawow sirdoonka adduunka iyo carruurtii la afduubtay Ariel Castro waxa uu nin ka soo haajiray Latin America isagoo soo galay Mareykanka 1979 kadib markii hooyadii aabi kala tageen waxa uu degay magaalada Ohio halkaas ayuu xaas carruur ku yeeshay Castro wuxuu nabar madaxa u geystay xaaskiisa isagoo la xidhay 1993 markii lagu soo oogay dacwad qoys muddo markii uu xidhnaa ayaa la sii daayay Castro waa uu ka guuray gurigiisa isagoo shaqo ka bilaabay iskuulka carruur yar u dhigato waa uu noqday darwal baska ku qaaday ciyaalka 2002 Castro waxa uu afduubtay Michael Knight oo ahayd gabadh yar oo la saaxiib ah inantiisa isagoo martiqaad ugu fidiyay gurigiisa waxa uu ka ilaaliyay inay ogaato inantiisu Arlena si aan raadraac loo helin waxa uuna ku qaatay baabuur isagoo aqalkiisii la tegay kadibna qol hoose ku xidhay Michael Knight waxay xurgufi ka dhaxaysay waa gabadh yar la afduubtay hooyadeed waxaana loo arkayay inay ka baxsatay oo gobol kala tagtay baadidoon weyn lama sameyn laakiin waxa la wargeliyay booliska waxa la waayay 2003 iyadana gabadh yar oo Amanda Berry la dhaho iyadoo ku jirtay dabaaldegii dhalashadeeda waxaana ugu wardambeysay markii walaasheed ku tiri waan soo noqonayaa FBI-da ayaa sheegtay in qofkii afduubay uu la hadlay hooyadeed una sheegay inuu guriga keeni doono oo isagu hayo gabadha yar Castro ayaa ku guuleystay afduubihii labaad isagoo ku xareysay gurigiisii oo ay ku jirtay Michael Knight waxa FBI-da CIA booliska Mareykanka baadigoob galeen sidii loo heli lahaa gabadha yar raadin dheer kadib sirdoonka waa uu ka qoostay waxaana magaalada u qaybiyay sawirada carruurta yaryar ee wajiyadooda abaalgudna in la sii doono qofkii ka warkeena ama arka halkiisii ayuu ka sii waday afduubka carruurtii Castro waxa la waayay 2004 China iyadoo ka soo laabanaysa dugsigeega dhexe iyadana waxa sidoo kale saaxiib ahaayeen gabadhu uu dhalay Castro ee Arlena iyadana ugu dambeysay qof arka kadib markii ay qorsheynayeen inay israacaan Castro waxa uu ku soo dhawaaday China si la mid ah Michael Knight markuu afduubanayay waxay ogeedeen inuu yahay saaxiibteed aabaheed oo kalsooni ku qabtay sidaasna ay ku raacday wuxuu la tagay gurigiisii oo ay ku jiraan laba hablood oo yaryar waa soo sanado ku xidhnaa qol hoose China ayaa ku biirtay iyadana qolkii oo saddex ku noqotay qafaashadii Castro gurigii horarka Castro waxa uu ku haystaa saddex carruur oo soo kacay oo qurux badnaa magaalada cid ogaatay ma jirto shakina lagama galin wuxuu ku shaqeystaa baska carruurta qaada magaalada waxa galay afariir iyo cabsi carruurtii oo dhow waa la wada xareysay haday banaanka u baxaana waalidkooda ayaa gacanta u wada haya sirdoonkii Mareykanka ayaa gobolka isugu wada yimid si loo baadigoobo carruurta maqan iyo dambiilayaasha waxa la xoojiyay ciidamadii booliska oo wada loo dhigay kuwa badan oo laga shakisanaana waa la xidhay ha yeeshee kumay guuleysay inay helaan saddexdii carruur iyo dambiilihii House of Horror gurigii horarka maxaa ka dhacay gurigii wuxuu ahaa laba dabaq oo dabaq ayaa dhulka hoose ku yaalay halkaas ayuu ku hayay saddex hablood qof wala waxa uu ku xidhay silsilad aad u adag si aan u baxsan isagoo agdhigay caag ay ku soo xaroodaan waxa uu geystay tacad iyo jirdil saddexda waqti mar ayuu iswaxsiin jiray iftiinkii adduunkana uu ka qariyay Michael Knight waa gabadhii ugu horeysay ayuu sidoo kufsanayo uu yeelay 5 jeer laakiin jirdilku ku sameeyay ayay carruurtii ka saqiirtay halka Amanda Berry iyo China ayagana uu kufsan jiro jirdil jiray waalidka carruurta dhalay way ka qoosteen oo dad dhintay ay ka soo qaadeen sirtoonkii qiir ruuxa way waayeen Castro isla si xoriyad leh ayuu magaalada ugu nooliyay isagoo wada baabuurta qaada carruurta oo wax shakiya lama gelin Amanda Berry ayaa ilmo yar ku dhashay qolkii madowga iyadoo silsilada gacantu kaga xidhan tahay rafaad iyo xanuunna waxay u martaba ilmihii yar dibadda ayuu yimi Castro ayaana qolka ugu soo galay iyadoo dhiig baxday oo ilmihii yar dhabto ku haysato dhiig joojin kadib ilmihii uu ka qaatay isagoo qolka la geeyay isla markaana uu xanaaneynayo oo wixii hooyadu uga baahneed isagu qabanayo gurigii horarka ahaa waxa ku soo biiray qof afraad oo isna lagu qariyay iftiinka adduunka kaasoo qol mugdi hoosta looga xidhay Castro waxa uu kalgacal u qaaday gabadhiisii yar isagoo u soo dhawaaday in badan si uu daryeel iyo xanaan u siiyo 10 sano kadib maxaa dhacay
maalmaha kamida sanadkii 2018 ayaa waxa uu Castro ilaabay furii qolka Amanda Berry taasoo xoriyad dhaqdhaqaaq yar haysatay waa subax uga duwan kumanaan subaxood oo soo maray Castro wuxuu ka haystay baskiisii isagoo guriga ka tagay isna mooday inuu qolkii soo xidhay halka ay iskuulkii carruurta ayuu aaday Amanda Berry markii ogaatay inuu baxay ay qolkii ka soo carartay iyadoo jaranjarta hoose soo fanatay si ay dabaqa sare u gaadho nasiib daro guriga uu xidhan yahay oo dhan walba uu ka quflan yahay waxay meereysatay oo kolba isku qaaday albaab waxay jabisay daaqad oo ay ka qaylisay iyadoo oohin ku dhufanaysa cid wadada marayso oo maqashana way weyday baaq dheer kadib waxa wadadii soo maray nin madow oo jaarka Castro ahaa isagoo mar qura maqlay help oo ah icaawiya indhihiisi waxay qabteen gabar daaqad ka soo hadlayso oo caawin u baahan lugta ay u dhaqaajiyay isagoo u jihaysta halka iyo guriga Castro Amanda Berry waxay ku tiri caawi iga fur guriga waa la aftuubay 4 qof ayaan dhahay please markiiba ninkii madow wuxuu jabiyay albaabkii isagoo dibadda u soo saaray Amanda Berry wuxuu geeyay gurigiisii oo dhawaa Castro halkaas oo Amanda kula hadashay booliska iyadoo sheegtay in 10 sano la haystay keedka maqnaashaha dadka la waayay booliska ayaa markiiba ogaaday xogta Amanda Berry isla markiiba goobtii waxa soo gaaray ciidamada booliska kuwa sirdoonka gurmadka degdega bahada caafimaadka oo dhanka iyo gurigii horarkaas ugu imi si loo badbaadiyo Amanda Berry waxa mar qura laga war helay inay guriga ku jiraan 2 hablood oo kale oo iyagana lagu qoostay 10 sano qolkii mugdiga waxa loogu tagay China iyo Michael Knight oo silsilada ku xidhan oo duruufta iyo jirdilku ka muuqdo waxay ku dhufteen mar qura oo in farxad ay la ilmeeyeen Castro oo ismoog ayaa goobta shaqada loogu tagay isagoo hawshiisa iska wato aan wax warwara qabin isla markiiba ciidamada ayaa jeebiyay oo xabsiga u dhaadhiciyay USA waa Mareykanka ayaa mar qura waxa dhagihii dadka qabsaday waxa ka dhacay oo haayo wargeysadii idaacadii iyo TV ayaa sii daayay warka naxdinta leh habla la waayay 10 sano ka hor oo la helay inna uu iska haystay ninkii badbaadiyay ee madowga ayaa loo aqoonsaday geesi isla markaana wareysiga laga qaaday isagoo waxa dhacay la yaaban qoysaska ay ka soo jeedeen gabdhuhu ayaa u qaadan waa ku dhacay caruur ay ka sabreen waxay la noqotay dad dhintay oo soo noolaaday Amanda Berry waa hooyada dhashay waxay bilayska ka codsatay in aan loo sheegin inay gabadh dhashay oo Castro aabbo yahay lana qariyo ilmaha 6 jirka ah Castro waxa la geeyay maxkamadda halkaas oo isku timid dhibanayaashii qoyskooda iyo dad aad oo arintan argagax weyn ka qaaday waxaana garsoori maxkamaddu dhageystay eedii isagoo kiiskan aan weligiis hore u soo marin la yaaban waxa uu ku dooday in aanu dambi lahayn isagoo ka cararaya eedda kufsi caruur loo geysto inay tahay qaab adag wuxuuna ku tilmaamay in aanay caruur ahayn oo bikra ahaayeen markuu aftoobanayay oo ay qaangaareen laakiin wax walba daada caruurtu ayaa doodiisi jabisay isagoo lagu xukumay August 2018 madaxaha ku furtay xabsi daa'im ku sanna ah Merkel ayuu afka furtay oo arintii Amanda Berry qarinaysa kaga dhawaajay kana codsaday garsoori in la tuso gabadhiisa yar si uu la kulmo waxay arintii noqotay mid kala ficisa oo ka yaabisay garsoori iyo dadkii meesha joogay kiiska ayaa waji kala yeeshay oo saxaafadii adduunka ayaa mar kale war aan fariin la baahisay taasoo ahayd in ilmo 6 jir ah adduunka joogo ay dhashay Amanda Berry garsoori maxkamaddu arintan madaxa ka qabsaday ayaa Amanda Berry u yeedhay si arintan wax looga weydiiyo waxay maxkamaddu ka hor sheegtay inuu dhalay Castro laakiin marnaba aanay tusayn September 2018 ayuu Castro isku daldalay qolkiisa xabsiga halkaas oo uu qudhays kaga jaray gurigii horarka ahaana burburintiisii waxa isku timid bulshada gobolka ku nool si ay u daawadaan qisadii aan fariirka iyo argagaxa wadatay caruurta iyagoo dhalaana la afduubtay la helay ayagoo hooyooyin ah halkaas ay ku eegtay maxay kula tahay fariintada hoos noogu reeb like share comment subscribe waa sirdoonka adduunka